السلام عليكم ardayda quruxda badan kusoo dhawaada cashar kale oo English ah casharkaana waxaan rabaa inaan ku sharxo if iyo whether waa labada eray isticmaalkooda iyo waxa loo isticmaalo rabaa inaan ka hadlo oo sharaxo si guud iyo si kooban aan rabaa inaan u sheego number 1 if markii laga hadlayo waxay tilmaamaysaa ama ka hadashaa sharaxdaa condition waxaa la yiraahdaa waa shuruud ay markii shuruud laga hadlayo ama shay ay shuruud bil shardi laga dhigayo waxaa la isticmaalaa if sidoo kale waxaa af Soomaali lagu yiraahdaa lacala saas iyo saas dhacan saas la sameeynaya waxaa la isticmaalaa if sidoo kale whether markii la isticmaalayo waxaa loo isticmaalayaa two choices markii la kala dooranayo laba options ama laba kala daran mid door camal markay tahay ama laba ikhtiyaar ama laba option afsoomaan hadla laba doorasho marka doorasho leeda laba shay adiga ikhtiyaar u leeda inaad kala dooratid ayaa la isticmaalaa sidoo kale si guud markaan sharaxayno labadan eray oo if iyo whether waxay ka hadlayaan they talk about uncertainty or unknown things or they show doubt labadaba waxaa loo isticmaalaa markii wax aan la hubin ama shay aan la hubin laga hadlayo ayaa la isticmaalaa sidoo kale labadooda waxaa loo isticmaalaa markii reporting yes or no questions waxaa laga wadaa tusaale ahaan oo kale labadan eray markii la isticmaalayo waxaa loo isticmaalaa werinta ama tabinta wax dhacay ficil dhacay ama arin qof hadalkiisa marka aad soo warinaysid ayaa la isticmaalaa for example indirect speech wax la yiraahdo ayaa lagu isticmaalaa labadooda tusaale ahaan oo kale hadda waxaan leeyahay are you coming markaan dhaho waa hadal toosa direct speech ayaa la dhahaa markii lasoo tabinayo waxay noqonaysaa she said or he said or he asked if I was coming wuxuu i weydiiyey tusaale ahaan aniga qof wuxuu yiri are you coming anaa qof igu dhahay qofku wuxuu noqon karaa qof dumar ah ama qof nin ah oo ragga soo qofba wuxuu yiri are you coming ma imaanaysaa waa hadal toos anaa la weydiinaya soo aniga weydiintii la weydiiyey waa qof kale u sheegaya soo marka waxaa leeyahay haddii qof dumar ay ahayd waxaa leeyahay she asked waxay weydiisay if I was coming in aan imaanayo ayay weydiisay or waxaa isticmaali karaa whether waxaa leeyahay she asked me or she asked whether I was coming waxay weydiisay in aan imaanayo in kale ayay weydiisay iyo af Soomaali noqonaa soo haddaba direct speech iyo indirect speech waan baran doonaa casharada nada xiga ayaan ku baran doonaa laakiin isticmaalka if iyo whether ayaa loo isticmaalaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa markii whether la isticmaalayo it shows choices in la kala dooranayo sida halkan aan ku sheegay laba kala daran mid dooro camal a iyo b markaa kala dooranaysid halkan waxaa ku taalo a intan waxaa ku taalo b soo adiga midkii kuu roon dooro midka aragtida dooranaysaa sidoo kale waxaa la isticmaalaa labadan eray markii oo polite and formal English la isticmaalayo polite and formal English waxaa waaye waa luuqad ingiriiska markii si formal rasmi ah dad madax oo kale xafiisyadoo kale markaa joogtid markaa isticmaalaysid special weather ayaa loo isticmaalaa polite language ama polite message markaa qoraysid or formal message markaa qoraysid weather isticmaalaysaa for example in a sentence waxaad leedahay please tell me whether you agree fadlan ii sheeg whether halka whether la isticmaalo whether you agree inaad igu raacday in kale ii sheeg baad leedahay waa formal English ayaa la yiraahdaa sidoo kale isticmaalka labadan eray waxaa loo isticmaalaa to show conditions especially if markaa isticmaalaysid waxay tusinaysaa shuruud waxaa leedahay tusaale ahaan oo kale if it rains I will cancel the trip haddii roob da'o waxaan baajin doonaa ama kansali doonaa tripkayga safarkayga aan baxayay waan joojin doonaa ama waan kansali doonaa intaas haddaa ila fahamtay tusaale ahaan oo kale haddana waxaan sii fiirinaynaa we use if markaa isticmaalayno oo if ay isticmaalayno waxaa isticmaalnaa when making decisions markii aan sameynayno go'aamo for example in a sentence waxaa leenahay I will travel if wuxuu dhahayaa tusaale ahaan oo kale I will
decide if I will travel tomorrow. I will decide if I will travel tomorrow. If I استعمالها. I will decide وقوانسان دونا if لعلا I will travel tomorrow. هدي لعلا سفراي بري وقوانسان دونا. That is when making decision. قوان مركا سميسانيسيد أما قادنيسيد وها استعماليسا if با استعماليسا. For example, we use if when planning marka qorsheysanayno ama qorshe sameynayno if ayaa isticmaalnaa. For example, waxaan dhahayaa I will cook if the guests come early. I will cook waa karin doonaa if the guests come early. lacala haddii martida xilli hore yimaadaan waa karin doonaa cuntada. That means qorshahaygu wuxuu ku xiran yahay martida inay timaado oo khaasatan xilli hore timaado. Then immediately after the arrival waxbaan karinayaa, cuntadii waa karinayaa weeye. sidoo kale if waxaa isticmaalina giving advice. For example, in a sentence waxaa leedahay tell me if you need help. haddaa u baahanta waa advice waaye. Tell me if you need help. haddaa u baahanta caamaad ii sheeg baa leedahay. tusaalahaan oo kale jumladan if it rains, haddii roob da'o we will stay home. This go-aan bay ku xirantahay ayagana waan making decision waaye. hadduu roob da'o we will stay home, guriga ayaan joogi doonaa. lacala hadduu roob da'o gurigaan joogaynaa waa go-aan baa qaadanaysaa ama go-aan baa sameynaysaa. sidoo kale if waxaa u isticmaalnaa nire warning someone. tusaalahaan oo kale qof waxaa ku leedahay if you don't study you may fail the exam. halkan kuma jirto laakiin waa example kale. waxaa leedahay if you don't study haddaadan waxba baranin you may fail the exam. imtixaanka waa ku dhici, waa macquul imtixaanka inaa ku dhacid. so taasna waxaa waaye if markaa isticmaalayno. kuwaana waa tusaalooyin kale. labadan waa soo sheegay. tan tusaalahaan oo kale he doesn't know if she likes him. halkan waxaa lagu muujinaa uncertainty or something that's doubtful oo shaki ku jiro. he doesn't know ma ogo ama ma garanayo if she likes him, in ay jeceshahay ama ay ka heshay asaga ma ogo mana garan karo. that means shaki baa meeshaas ku jiro, wax lahuba ma ahan. tusaalahaan oo kale she asked if you finished your homework. waxay weydiisay in haddii aad dhammaysay your homework shaqadaada guriga iyo haddii kale ayay weydiisay. she asked waxay weydiisay if you finished lacala inaad dhammaysay your homework shaqada gurigaada inaad dhammaysay in kale ayay weydiisay. halkaa marka waxaa loo isticmaalay yes or no question. indirect speech ayaa loo isticmaalay. waa if isticmaalkeeda. haddaa kusoo celiyo tusaalooyinka waxaan leeyahay tell me if you need help. advice waaye. qofa waxaa leedahay haddii aad u baahan tahay wax caamada ii sheeg, waa kula talinaysaa. sidoo kale waxaa leedahay if it rains, haddii lacala roob da'o we will stay home. waxaa weeye gurigaan joogi doonaa. that depends on the decision you're making. alright, this one sidoo kale waxaa leedahay